kuliyada maaraynta adeega shacabka ee magaalada Jigjiga waxaa maanta imtixaankii heerkii labaad ee xaqiijinta tayada xirfadlayaasha u fadhiistay arday gaadhaysa 307 arday oo isugu jirta aqoonti iyo jaaram. Haddaba waxaa imtixaanaadka xaqiijinta tayada xirfadlayaasha nooga warbixiyay maarayo ku-xigeenka kuliyada Axmed waxaan hadaladiisii kamid ahaa. saad la socotaan maanta halkan waxaa imtixaanka ku galaya imtixaanka tayada xaqiijinta arday dhan 307 arday. ardaydaasoo qaadanaysa imtixaanka tayada xaqiijinta oo heerka labaad loo yaqaano ama level 2 loo yaqaano. hadda ka horna saad la socoteen waxay soo galeen heerkii labaad. ardaydani goor kasta anagoo iska kaashanayna xarunta tayada xaqiijinta ee deegaanka kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka mas'uuliyiinteedu kulli goor kasta waxay ka go'an in ardayda ay wax bareen muddada dheer ay soo bareen wax soo baranayay in tayadooda la xaqiijiyo inta aynan moogtahay shaqada adeega adeeg bixinta ayna bilaabin bal qofkuna wuxuu soo bartay miyuu aqoonteedii leeyahay xirfadeedii mise ma laha imtixaan lagu xaqiijinayo weeyaan. runtii annagii iyo xarunta tayada xaqiijinta ayaa iska kaashanaa iyagu waa ciddii tayada xaqiijinaysay dadkan imtixaanka qaadaya imtixaanka soo diyaarintiisii waxoo dhan mas'uuliyadda iyaga mandate-ka iyaga iska leh. annaguna ardaydii halkan aan wax soo baraynay dhowrka sano inaan diyaarino waxala waxay u baahan yihiin hadday kharash u baahan yihiin hadday iyagu iska shubayaan kharashka iska bixin haddaan anagu ka bixinayno inaan listadoodii xaqiijino ardaygani inuu arday meesha ka baxa yahay markii waxaa la dhammaystiro in ay ogtahay aan waqti u qabanno sidaana ay ku qaataan imtixaankana markaa kulley waxa uu muhiim u yahay bulshada intaynan adeeg bixin ayna gelin ardaydani in aqoontoodii la testigareeyo ama la tijaabiyo ayuu muhiim ka yahay. midda kale saad la socotaan kuliyadu ma bixiso oo kaliya imtixaankan hadda heerkiisa labaad la qaadayo waa diploma ama waxa loo yaqaan TVET-ka. waxay kaloo kuliyadu bixisaa saad la socotaan bood wareysiyo badan ku sii deyseen degree-gana programkan degree-ga la yiraahdo way bixisaa oo arday hadda ilaa 4000 iyo jarjar ah ay ku jirto oo shalay ugu dambeysay imtixaankii soo gabagaboobay ardaydii sanadka koobaad imtixaanka qaadanaysay freshka ahayd oo semesterkii koowaad imtixaanka dhameystay arday ilaa 2000 oo arday dhan shalay ay imtixaankan halkan goobtan ku soo gabagabeeyeen. sida aad la socotaan ma aha oo kaliya kuliyadu uma taagno programyada ama barnaamijyada aan soo sheegnay oo kaliya uma taagnay waxaa kale u taagan tahay waxyaabo fara badan oo kale inay qabato sida daraasaadka oo kale tababarada gaagaaban oo kale oo shaqaalaha dawladda iyo la siinayo iyo hogaamintaba la siinayo mustaqbalkana insha Allah in fiilyadan hadda imtixaanka ku qaadayna fiilya ka duwan oo takhasusyo ka duwan oo baahida deegaanka ka tarjumaya oo ku salaysan daraasaad inaanu bilaabno mustaqbal laftigiisa oo qorshayaasheena ugu jiraan heerka waxbarasho aan bixinaynana inaan heer degree ilaa heer master aan u gudbino kulley hadda ka hor sida aad midiyaasha kala socoteen waxaa jira dadaalo fara badan oo kuliyadu ay samaynaysay oo mas'uuliyiintooda wada jira ay u qabteen moogta ay guntiga dhiisha iska dhigeen si wanaagsan iyagoo oo la kaashanaya bahaha kale ee baha wadaagta kale ee deegaanka ha noqoto xukuumadda mas'uuliyiinta ugu sareysa inay dadaal ballaaran ka gashay taana mustaqbalka waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay dad aqoon heer sare leh ay halkan ka bixi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. dhankiisa kalena waxaa nooga warbixiyay xubin kamid ah wakaalada xaqiijinta xirfadlayaasha ee COC-ga mudane Khadar Cali Maxamed waxaana hadaladiisii kamid ahaa. magacaygu waa Khadar Cali Maxamed ka socda xafiiska wakaalada xaqiijinta xirfadlayaasha ee COC-da. maanta halkan waxaan ku qiimeynaynaa ardayda wax ka barata kuliyada Jigjiga Management Institute. ardaydaas ugu jirta laba qaybood oo kala qaybta accountiga level 2 heerka labaad iyo qaybta HR heerka labaad. ujeedada ma ardayda loo qiimeynayo waa in xirfadlaha la xaqiijiyo tayadiisa si bari kamaal u noqdo arday bulshadii anfaca. markii hore waan soo qiimeynay ardayda wax ku soo qiimeynay heerkii koowaad oo level 1 marka wixii heerkood ka soo gudbay ayaa soo gudbay heerka labaad. marka hore soo gudbo ayuu galay qiimaha labaad laakiin ruuxu aan qiimaynta koowaad soo gudbin
ma noqonayso inuu gudbo qaybta qiimeynta labaad marka nidaamkaasna waa nidaam boolisiga u yaala si uu sigoye marka heerka uu soo gudbo in heerka labaad marka heerka guwaad soo gudbo uma arday gudbi kara heerka labaad kulley waxaan rajaynaynaa insha Allah in natiijo ka soo baxda qiimeynta noqon doonto natiijo aad wanaagsan oo ay xirfadlayaasha ku farxi doonaan Saacid Axmed Cismaan wararka Nabad TV magaalada Jigjiga